gabadhaani waxay alaab ka soo degsanaysay gaarigeeda. Si lama filaan ah ayay waxay ku maqashay galaashyada shanqar. Markii ay fiirsana waxna waa ay ka weysay. Iyadoo sidii alaab ula soo baxays ayaa hal mar waxaa la taabtay garabkeeda. Waxa uuna ahaa ninkeeda. Waxa uu la qaadayay alaabta. Markii uu kor soo garay, ninkii waxa uu ka maqlay musqusha shanqar intuu baday qabiiska la furay. Kadibna markuu uu galay cidna waa uu ka waayay. Isagoo tubadii xiraaya ayaa si lama filaan ah in la garanaynin ayaa waxay madaxiisa ku duubtay bac. Waa ayna ku ceejiyeen ilaa ay ka dileen. Waxa ayna ku soo xireen musqushii. Markii iyadana sidoo kaleeta ay ka soo dawgashay gurigii, waxa ay maqashay jikada oo ka soo bixaysa shanqar. Markii ay jikadii soo gashayna waxay aragtay qaanadaha in la furfuray. Markii ay qaanadihii xirxirtay waxay dhulka ku aragtay warqad oo waxyaalo la yaab ah ku sawiran. Markii dib ay u fiirisay jikadii haddana waxay aragtay mar kaleeta in la furfuray qaanadihii oo idil. Markaani waa ay cabsatay waxayna u carartay dhanka kale. Waxayna raadinaysay ninkeeda. Iyadoo sidii u raadinaysa ayay waxay fiirisay musqushii. Waxa ayna aragtay ninkeeda oo madaxa bac ugu duuduuban oo musqushii dhex jiifa. Markii ay cabsatay ay soo baxdayna sidoo kaleeta iyadana cid la arkin ayaa ciinjisay ilaa ay ka dileen. Kadibna gaarigooda waxaa ka xistay cid aan la arkaynin. Wiilkaani isagoo hurtaya waxaa la daaray TV-ga. Waa uu soo kacay. Waxa uu la yaabay cidda daartay TV-ga. Markii uu soo fadhiistay isagoo yaaban waxaa la soo gargaraacay albaabka. Wuxuu codka ka xiray TV-gii. Waxa uuna aaday albaabka dhankeeda si uu u fiiriyo cidda soo gargaraacayso. Wuxuu duleelka ka arkay nin sii jeeda uuna soo aadiyay dhawarka. Waa uu la yaabay run ahaantii. Waxa uuna si tartiib ah u furay albaabkii, laakiinse banaanka cidna ma aysan joogin. Markii uu soo xiray albaabkii waxaa mar kaleeta la soo gargaraacay iridii. Markaani waxa uu ogaaday qofka uu duleelka ka arkayay inuu asaga yahay. Dhaqdhaqaaq waliba uu sameeyana uu ka daba sameynayo. Waxa uu bilaabay in uu ciyaaro. Sidoo kaleeta qofka uu arkayana waa uu ka daba ciyaarayay. Si lama filaana laakiin waxaa tagtay korontadii. Markii ay soo laabatana waxa uu weeyay qofkii isagoo ekaa. Markii uu soo jeestay waxa uu arkay ninkii ekaa in uu taagan yahay dhanka TV-ga. Uuna u taagan yahay siduu isagu u taagan yahay. Uuna sameynayo ficilka uu sameynayo. Wuxuu isku dayay inuu si tartiib ah albaabka u furo. Laakiinse sidoo kaleeta midka meesha taaganna waxa uu sameynayo isla ficilkii. Waxa uu xukumayay jismigiisa oo idil. Waxa uuna u soo dhaqaajiyay dhankiisa. Markii uu u soo dhawaaday kadib, gabadhaani waxa u soo dhaxday fariin oo ka timaaday qof aan la garanaynin. Markii ay fiirisay moobilkii waxay isku beddeshay nooc kaleeta. Waxayna ku qalashay taleefonkii iyadoo dhoola caddaynaysa weliba. Waxaa qolka ka soo baxay ninkeeda. Waa uu la hadlayay balse iyada ma aysan maqlaynin ilaa uu agteeda imaado. Waxa uu taabtay garabkeeda laakiinse iyada miirkeeda ma joogo. Waxa uu ka qaaday taleefonka. Kadibna si lama filaan ah waxaa soo noqday miirkeeda iyadoo isla yaabin weliba waxa ku dhacay. Wuxuu ku yiri ninkeeda wax aan rabo inaan aado safar. Sidoo kale waxay tiri caafimaadka
adigoo nabad qabta. Waxa uu siiyey taleefankeeda kadibna waa uu ka tagay. Mar kaleeto waxa u soo dhacday basqadii. Waxa ayna noqotay sidii hore ay noqonaysay iyadoo dhoola cadeynaysa waliba. Waxaa dhammaaday habeenkii waxaana baryay waagii welina waxa ay fiirinaysay taleefankii ilaa uu ku damay. Waa ay yaabtay. Waxa ayna la yaabtay in ay meeshii weli ay fadhiso. Waxa ay fiirsay taleefankii waxayna igashatay dabkii. Waxayna aaday dhanka jikada si ay shaax u soo samaysato. Mar kaleeto waxa ay maqashay in uu taleefankeeda bashqad ku soo dhacay. Waxa ayna aaday dhanka moobilka. Mar kaleeto waxa ay noqotay sidii markii ay bashqadii ay fiirisay. ilaa maalintii oo idil laga gaaro habeenkii ilaa isbuucyo waxa ay fiirinaysay taleefankii iyadoo aysan dareemaynin weliba. Waxaa isbedelay jismigeeda wasaq darteeda welina waxa ay fiirinaysay taleefankii. Waxaa safarkii ka soo laabtay ninkeeda. Waxa uu fiiriyay hareeraha kadibna waxa uu arkay weli inay meeshii ay fadhiso. waxa uu u soo wareegsaday dhanka wejigeeda si uu u fiiriyo iyada. laakiinse waxa uu arkay arrin uu aad uga naxo. waxa uu arkay xaaskiisa oo mar hore dhimatay. gabadhaani iyadoo socota waddada waxay aragtay maraayad ku qoran waa firii. kadibna waa ay soo qaadatay waxayna keensatay gurigeeda. markii ay isku fiirisay waxay ka maqashay cod. sidaa daraaddeeda waxay ku miirbeeshay muraayadii iyadoo leh waan qurux badanahay. waxay soo qaadatay shanladeeda waa ayna ku shanlaysanaysay iyadoo dhoola cadeynaysa welina muraayadda ayay fiirinaysay. waxaa la gaaray habeen welina sidii ayay muraayadii isku fiirinaysay iyadoo shanlaysanaysa. waxaana ku baryay waagii ilaa ka soo wareegato isbuuc. wax ay fadhisay muraayadii waxaana in badan soo dhacayay taleefankeeda. waxaa timaaday hooyadeeda iyadoo u dhawaaqaysa weliba. waa ay la hadashay iyadoo leh ma i maqashaa? maxaad iila hadli la'san tahay gabadhayda? waxa ay ka dabooshay muraayadii si lama filaan ah. waxaa miirkeeda soo laabtay hal mar gabadhii iyadoo leh maxaa dhacayo? maxaadna halkan ka samaynaysaa hooyo? waxay ku tiri in badan ayaan ku soo wacay. maxaad iiga qaban weysay taleefanka? maxaadna ka hor samaynaysaa muraayadaani? laakiinse waxaa muraayadii ka soo dhacay maradii. labadoodaba waxa ay noqdeen sidii qof arkay wax aan la arkaynin. waxa ayna ku hor qalaleen muraayadda hortooda iyagoo leh waan qurux badanahay. waxaa ka soo wareegatay isbuuc. waxa ay horfadhiyeen muraayadii laakiinse markaani labadoodaba mar horeeta ayay dhinteen siday isu fiirinayeen muraayadda.